haweeney nadiifiso ah ayaa maalin kasta isu ekaysiisa haweeney uur leh si ay uga shaqayso suuq weyn. Si ay ugu dhawaato haweeney dhab ahaantii uur leh, waxay si ula kac ah u qoyn jirtay sagxadda, kadibna waxay iska dhigi jirtay qof ka digaya in la siibto. Anna waxay dareentay naxariisteeda, labadooduna way isbarteen oo wada hadleen. Nadiifisadu waxay weydiisay Anna waqtiga dhalmada. Anna si aan taxadar lahayn ayay ugu sheegtay. Ellie aad bay ula yaabtay markay ogaatay in farqiga u dhexeeya uu yahay hal maalin oo keliya. Laakiin Anna ma aysan ogeyn in Ellie u soo dhawaanaysay si ay uga xado ilmaheeda, maadaama Ellie aysan awoodin inay carruur dhasho. Muddo dheer ayay ku riyoonaysay inay hooyo noqoto. Sidaas darteed, uurka Anna ayaa noqday bartilmaameedkeeda. Ellie maalin kasta waxay sugaysay fursad ay ugu sii dhawaato Anna, laakiin maalin maalmaha ka mid ah waxay la kulantay tuug. Aad bay u baqday, waxayna ku dhacday dhulka. Markay guriga tagtay, way ooyday sababtoo ah uurkii been abuurka ahaa ayaa ku sigtay in la ogaado. Waxay garwaaqsatay inaysan sugi karin mar dambe. Maalintii xigtay, Ellie waxay ku laabatay shaqada. Markay aragtay Anna iyo wiilkeeda, waxay go'aansatay inay fuliso qorshaheeda. Ilaahay baan kugu dhaashay. Fadlan muuqaalkeena u jireeya like saar saaxiib. Sallallahu alayhi wa sallam ku soo qor qaybta comment-ka oo ha ilaawin inaad taageerto channel-ka. Intii Anna wax iibsanaysay, Ellie waxay wiilka ku jiidatay bakhaarka. Anna markay ogaatay in wiilkeedu maqan yahay, si walaac leh ayay u raadisay. Isla waqtigaas, Ellie ayaa ka soo muuqatay iyadoo wiilka la socota. Ellie waxay heshay kalsoonida Anna, waxayna noqdeen kuwa isku dhow. Si ay ugu mahadceliso, Anna waxay Ellie ku dartay fasal jimicsi oo loogu talagalay haweenka uurka leh, waxayna ku casuuntay gurigeeda. Intii ay wada hadleen, Ellie si xeelad leh ayay u ogaatay isbitaalka iyo waqtiga saxda ah ee Anna dhalayso. Waxay been sheegtay inay iyaduna dhowdahay dhalmada, sidaas darteed aysan iman karin. Markay guriga tagtay, Ellie waxay bilowday qorshaheeda. Waxay internetka ka iibsatay qalab, waxayna baartay qaabka isbitaalka uu dhisan yahay. Kadib waxay u tagtay guriga walaasheed oo dhawaan dhashay. Intii walaasheed huruday, Ellie waxay xiratay dharka kalkaalisada, waxayna si qarsoodi ah u qaaday ilmaha. Aad bay ugu faraxday, waxayna ka qaaday sawir, kadibna waxay ku faafisay baraha bulshada si Anna u aragto inay iyaduna dhashay. Markay guriga ku laabatay, waxay iska saartay calooshii been abuurka ahayd, waxayna ku tuurtay dabka. Waxay dareentay nafis. Dhanka kale, Anna waxay ku jirtay qolka qalliinka. Ellie si degdeg ah ayay u aaday isbitaalka iyadoo wadata qalabkeedii. Waxay ku dhuumatay musqusha, waxayna xiratay dharka kalkaalisada ee ay internetka ka iibsatay. Waxay iska dhigtay kalkaaliso cusub, waxayna raadisay lambarka qolka Anna. Kadib waxay u tagtay sariirta Anna, waxayna ka dhex aragtay ilmaha. Waxay sugaysay fursad ay ku qaadato. Si lama filaan ah, Anna waxay codsatay inay qubaysato, taasoo siisay Ellie fursad. Markay Ellie isku dayaysay inay ilmaha qaadato, ninka Anna ayaa soo noqday si uu wax u soo qaato. Wuxuu weydiiyey halka ay ilmaha u qaadayso. Ellie waxay sheegtay inay u qaadayso baaritaan. Ninkii markuu arkay inay degan tahay oo kalsooni leh, wax shaki ah ma gelin. Laakiin ma uusan ogeyn in tani ay noqon doonto markii ugu dambaysay ee uu arko ilmahiisa.